aniga oo aad iyo aad uga xun uga murugaysan uga tiiraaysan aan halkan tacsi uga diro dadkii Soomaaliyeed ee maanta ku dhintay ama ku dhaawacmay isku dhicii ka dhacay magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland. waa nasiib darro waxaan leeyahay intii ku dhimatay Ilaahay ha u naxariisto, intii ku dhaawacantayna Ilaahay ha u boogadhayo. waxaan ku baaqayaa in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka meeshaas ka socda. waa dagaal micno darro ah, waa dagaal aan ku habboonayn, waa dagaalka ku dhimanaya labada dhinacba ay yihiin dad walaalo ah oo ahal ah oo haba yaraatee wax micno ay u samaynayso aysan jirin inay isdiriraan. sidaa darteed waxaan leeyahay mar kale si degdeg ah xabaddaas loo joojiyo. waxaan ku baaqayaa in wax kasta oo differences ah ama la isku hayo lagu xalliyo wadada ama jidka wada hadalka iyo isfahamka. waxaan hubaa inuu asagu ka dhib yar yahay, kana cost yar yahay, kana natiijo wanaagsan yahay in qori afkii lagu wada hadlo. waxaan joognaa xilli qofkii wax garanayay ee Soomaaliya soo joogay uusan xiiso badan u qabin inuu walaalkiis xabad ku rido. Puntland oo hooygii nabadda ah oo muddo dheer oo dhowr iyo 20 sano ah dawlad ahayd, maanta in caasimadeedii lagu diriraay daw ma aha. marka walaalayaal xabadda hala joojiyo, wada hadal ku dhamaysta wax kasta oo khilaaf oo jira. waxaan ugu dambaysta u baaqayaa ismada reer Puntland ee sharafta leh, waxgaradka qiimaha badan, aqoon-yahanka iyo ururada bulshada oo aan ogahay in ay karti u leeyihiin, khibrad u leeyihiin, aqoonteeda leeyihiin in ay joojiyaan xabaddaas, qaataan kaalintii lagu yaqiinay nabadeed, soona afjaraan, kala dhex galaan, isu keenaan, nabad lagu soo dabaalo deegaanka. waxaan u rajaynayaa dadka reer Puntland iyagoo nabada inay ciidaan oo wada jira, wada jirka iyo jiritaanka iyo xoojinta nidaamka dawladnimada ee Puntland waa aas-aaska nabadda Soomaaliya. Puntland waa horyaalka Soomaaliya ee dhinaca nabadda iyo dawladnimada iyo horumarka. waxaan rajaynaynaa in ay halkeedii ay ka sii wado. waxaan rajaynayaa in la soo afjaro wax kasta oo qulqulatooyina oo taagan, hadday noqoto mid siyaasadeed iyo hadday noqoto mid kale intaba. guul ayaan idin rajaynayaa iyo xabaddaas oo istaagta iyo idinkoo gacmaha isqabsada oo walaalo ah horeyna u socda. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.